كحرنا عمود تيفي كديغو ويلكاغا شيرجري سبسكرايب صار قد ما سنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دماتي مالك سو جوجتان با halkan waa Amid TV ku xirnow waxayna warbixin madaxda iyo shil balaaran oo ka dhacay jamaacada wadaniga xoreynta Ogaadanya ee degmada Dhagaxbuur shirkaas oo aad u heersareeyay aan ka soo qayb galeen madaxda sare ee oo nalif u horeeyay afayeenka jamaacada wadaniga xoreynta Cadaani Hirmooge iyo xubno kale oo ka tirsan shacabka iyo deegaanka oo ka wada hadlay nabadgelyada deegaanka colaadaha ka jira iyo dadka u dhaxeeya dhibaatooyinkaas arintaas oo guul laga gaaray sida aan warka ku helayno maantadan oo ay taariikhdu ku beegan tahay 14 bisha December 2019 warbixinada naga soo gaaray deegaanka iyo xaqiiqooyinka aan ka helayno oo sheegay in nabadgelyo laga dhaxwado dadkaas deegaanka Dhagaxbuur ku nool iyo meelo kale oo ka badan waana soo dhaweynaynaa warbixinada kale oo yahaynana waxa ka mid noqon doona insha Allah sida doolo gobolka doolo ayaa waxay ka jiray dhibaatooyin ay sidaas oo kale iyo qorreexay oo u dhaxeeyay deegaano walaalo ama dad deegaankaas wada dega sida Yoob iyo u dhaxaysa dhuure deegaanadaas ayagana nabadgelyadeeda ay ka galaan laguna guuleystay sida warbixinta ku helayno arrimahaas oo laga sameeyay jamaacada ka hawlgashay nabadgelyadeeda iyo dhexdhexaadinteeda arrimahaas oo ku soo dhamaaday guul iyo nabadgelyo sidaas oo rajeynayno in ay inta in la mid ku noqoto waxa kale oo haddana ay xilligan la taagan yahay ama saacad soo socday doonaan deegaanada sida dhagax madow oo kale oo ayagana colaado iyo ka jira arrimahaas kale deegaankaas oo liis lagu macdaray nabadeynta beelaha deegaanada colaadda ka jirto ee deegaanka Soomaalida ama sida u taqaanaba Ogaden region waana soo dhaweynaynaa barnaamijyadaas waxaana ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida Ogaden region in ay walaaltinimo ku wada noolaadaan in deegaanka uu ka balaaran yahay kana badan yahay dhamaantood xilli deegaan la isqabsanayayn ee loo dhaqaaqo horumar iyo iswadaarsi nabadgeladeed odayaasha dhaqanka xubnaha shacabka dhalinyarada waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay warbaahinta Amud TV in nabadgelyada iyo ay ka shaqeeyaan deegaanka horumarintiisa in aan dib loo laabanin colaad sokeeye iyo deegaanka wax dhibaato keenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin meel kasta joogtaan salaamaya ku xirna warbaahinta Amud meel kasta joogtaba ku soo dhawow